waxaan rabaa inaan halkan fariin kooban oo ku saabsan ka hortagga cudurka duumada uga soo gudbiyo dadweynaha reer Puntland. wasaaradda caafimaadka Puntland waxay dadaal xoog leh ugu jirtaa ka hortagga, daaweynta iyo dabargoynta cudurka duumada iyo sidii guud ahaan Puntland looga cirib tiri lahaa gaar ahaan magaalada Boosaaso oo noqotay magaalada cudurka ugu badan yahay guud ahaan Soomaaliya sida tilmaamayaasha caafimaadku qeexayaan. wasaaradda caafimaadku waxay ka fulisay dhammaan gobolada iyo degmooyinka Puntland barnaamijyo joogto ah oo lagu hortagayo faafidda cudurka duumada iyo daaweynta dadka buka. wasaaradda caafimaadku waxay dadaal dheer ugu jirtaa ka hortagga, daaweynta iyo dabargoynta cudurka duumada iyadoo oo sanadihii u dambeeyay magaalada Boosaaso ka waday shaqooyin lagu yareynayo cudurka duumada kuwaas oo ay ka mid yihiin baarista iyo daaweynta oo lacag la'aan ah oo laga hirgelinayo xarumaha caafimaadka, buufinta guryaha magaalada iyo meelaha biyo qabatinka, qaybinta markanooyinka daaweysan, iyo waxa kale oo wasaaraddu Boosaaso ka hirgelisay 5 baraagood oo lagu beerayo kalluunka cuna lulumooyinka kanaacadu ka dhalato kaasi oo loo qaybin doono dhammaan barkadaha biyaha lagu kaydiyo ee xaafadaha Boosaaso. si loo xakameeyo cudurka duumada waxa ay wasaaradda caafimaadku ka qaybinaysaa deegaanada ka baxsan magaalada Boosaaso markanooyin daaweysan kuwaas oo ay ka faa'iideysan doonaan dadka ugu nugul cudurka duumada oo ay ka mid yihiin carruurta yaryar ee da'doodu ka yartahay 5 sano iyo dadka ku nool xeryaha barakacayaasha iyo qaxootiga.